hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cuntada ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano FAO ayaa magaalada Nairobi ku qabatay kulan ballaaran oo diiradda lagu saarayo heerka beeraha iyo cuntada ee dalagyadii sanadadii ugu dambeeyay ka soo go'ayay wadamada Somaliland iyo Soomaaliya iyo geesta Puntland. kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen hay'ado badan oo ka hawlgala wadamada Somaliland iyo Soomaaliya iyo NGO-yo aad u fara badan ayaa hay'adda FAO ay diiradda ku saaraysa isla markaasina ay ku soo bandhigtay dalagyadii sanadadii ugu dambeeyay ka soo go'ayay wadamada Somaliland iyo Soomaaliya iyagoo oo sheegay inay aad uga fiican yihiin kuwii sanadadii hore, taas oo ay sababta qaadasha ay uga dhigeen inay yihiin roobabkii guga ee sanadadii ugu dambeeyay oo si fiican u helay isla markaasina wax ka bedelay tayadooda wax soo saarka iyo heerka nafaqada ee ciidaba. Cabdi Xuseen Roble oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee FAO ayaa ka warbixiyay ujeedada ay kulankan hay'adda FAO ugu qabatay magaalada Nairobi iyo waxyaabihii ay ku soo bandhigeen. kulanka maanta aan isugu nimid wuxuu ahaa in lagu falanqeeyo oo laga hadlo wax soo saarkii xilliga guga iyo roobabkii guga sida ay u saameeyeen nolosha dadka Puntland, Somaliland, Soomaaliya. Waxaa jirtay laga soo bilaabo sanadkii 2011 inay jirtay macluul baahday, laakiin wixii ka dambeeyay xilligaas afartii xilli ugu dambeysay ama labadii sano ugu dambeysay yani wax badan ayaa iska bedelay nolosha dadka, taasoo ay sabab u ahayd roobabka oo ahaa kuwa ugu waaweyn oo nolosha dadka reer miyiga ah oo aad u wanaagsanaa. sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda FAO oo kulankaasi ka hadlay ayaa iyaguna sheegay kadib markii ay xidhiidho isdaba joog la yeesheen NGO-yo fara badan oo ka hawlgala wadamadaasi ay ka shaqeeyaan inay ogaadeen inay jiraan baahiyo fara badan oo loo qabo dhinaca tayada wax soo saarka beeraha oo la xidhiidha nafaqa darro, taasina ay tahay in wax laga qabto. Ilaahi Cabdi Cali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Nairobi.